waraysigan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar aan kula yeelanay xafiiskiisa oo aan wax kaga weydiinay arinta uu bayga weyn ee qalbi dhagax oo deegaanka looga yaqaano qalbi dhariqe iyo dadka wada aragtiyada ciriiriyan ee ka hadlaya saxaafadaha ee majra habaabinaya dambiyada qalbi dhariq uu ka galay dalkiisa Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in Cabdikariin uu yahay nin u dhashay deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dambiye ka galay dalkan uu u dhashay ee Itoobiya isla markaana arintiisu ay u taalo dastuurka dalka waxaan doonaynaa ka hadlo dhowr qodob oo ku saabsan ninka ama xaaladda Cabdikariin laga hadlayo horta marka koobaad waxa isweydiin lahaa Cabdikariin waayo waa kuma Cabdikariin waa nin dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya u dhashay booliska ugu horeeyay deegaanka kamid ah kadib waxa weeyaan dhibaato uu sameeyay iyo dil iyo dhac iyo kursi iyo waxa weeyaan dhibaato uu sameeyay duurka la galay oo ururka nabadgelyada uu ka mid noqday dadkana dhibaateeyay gaar ahaan gobolka Doolo uu dhashay gaar ahaan degmada Wardheer iyo degmada waxa weeyaan Helow Danood deegaanka Qoraxay Jarar iyo guud ahaan deegaanka dhanba dhibaatooyin badan nogob dhibaatooyin badan ka geystay ilaa iyo waxa weeyaan Shabeelle meelna dhibaato ka geystay ma jirto arintiisi iyo waxa weeyaan maxaan ku rahaa xaaladiisuna waxay u taalaa dastuurka dalka Itoobiya iyo hay'adaha nabadgelyada iyo dawladda mas'uuliyiinta sare ee dalka Itoobiya cid ay khusayso dastuurka Itoobiya nin hoos jooga weeyaan dawlad dastuur leh oo waxa weeyaan taqaanaa sharci leh oo sharciga caalamiga iyo maxaan ku rahaa maxbuuska iyo kan dalka iyo ka deegaanka intaba mid dawlad waxa weeyaan taqaanaa ilaalinayso oo waxa weeyaan maxaan ku rahaa nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci uu ka jiro ayuu Cabdikariin ma taqaanaa dastuurkaas hoos yaala iyadana u taala talaabooyinkii ma taqaanaa markaas waxa weeyaan dawladda ay ka qaadanayso dhanka kale madaxweynaha ayaa ka hadlay dadka siyaabaha khaldan uga hadlaya arinta Cabdikariin qalbi dhagax isagoo sheegay inay wataan dana qarsoon oo u socda meel kale oo ay ujeedadoodu tahay inay soo celiyaan dhiig miiratadii al-shabaab iyo ubo dadka hadda siyaabo kala gedsan bay uga hadlayaan dad fikirro khaldan bay ku hadlayaan oo tusalahan Cabdikariin bay ka hadlayaan marka waxa isweydiinaya Cabdikariin cidda ka hadlaysa ee hadda maxaan ku rahaa weeyaan ayaamahan dambe ama diaspora ama Soomaaliya ha fadhiya dadka ka hadlayay horta waxa weeyaan Cabdikariin bay u danaynayaan baa taala soo oo Cabdikariin way ka xun yihiin in wax la yeelo maya hirin agenda fara badan baa jira hirino agenda fara badan oo iskor saaran baa jira qaar waxay rabaan ma taqaanaa kursiga ku doonayaan oo dawladda Soomaaliya ma taqaanaa iyo waxa weeyaan nidaam wala isgaranaya wax iska cad weeyaan politically ka raaxsan halkaas inuu wal xoga soo dhaxbaxo ka raadinayaan oo iska cadahay marka waxa weeyaan taqaanaa oohin bilaash ma taqaanaa waxba ka jirin ma taqaanaa oohinaya midna waa mid dawladda Soomaaliya iyo Amisom iyo Itoobiya iyo shacabka Soomaaliya waxa weeyaan halgankii ay galeen ee al-shabaab ku tirtireen waxa weeyaan al-shabaab ku weeqantay ee hadda mas'uuliyiinteedii ugu sareysay isku soo dhiibayso waxa weeyaan talaabada laga qaaday qorshe si al-shabaab loo soo celiyo al-shabaab baa loo ooyay Cabdikariin hotel lama ooyay qaar badan al-shabaab bay ooyaan qaar waxa weeyaan dawladahan waxa weeyaan argagixisada sida Eritrea iyo kuwa la midkii hadda waxa weeyaan taqaanaa waxa weeyaan yaani maxaan ku raayay dalka Itoobiya ka xun horumarkiisa waxa weeyaan yaa ugu soo dhumanaya kuwaas ma taqaanaa qorshayaal ay bixinayaan weeyaan dadka qaarkood oo iyagu dad nooca u hadlaya weeyaan madaxweynaha ayaa intaas ku daray in cidda dhahaysa Cabdikariin 77kii ayuu dhaawacmay ay uga haboon tahay inay ka hadlaan kuwa maalin kasta ku dhaawacmaya Soomaaliya iyo dhibaatada al-shabaab Cabdikariin 77kii uu dhaawacmay 77kii uu dhaawacay ninka dhahaya waxa isweydiinay in markaa muwaadin oo 77kii ku dhaawacmay ayaa ka xumahay uu leeyahay miya hadduu taaleeyahay shalay ninka ma taqaanaa dhaawacmay ee al-shabaab ku dhaawacmay ee ciidanka qaranka ee Soomaaliya hadda jooga ciidanka qaranka ama hay'adaha kala gedisan ee dawladda Soomaaliya ee hadda al-shabaab ku dhaawacantay kaamu ka hadlo ma taqaanaa wax loo qabto kaamu ka hadlo dhibaatadiisa ma taqaanaa qoysaskiisa isagoo ay rafaadayaan kaasina uu ka hadlay shacabka al-shabaab ku dhintay Cabdikariin wuu leeyahay kuwa dhintay maalin kasta qaraxa la daba taagan yahay maalin qudha isagoo laga mudaharaad lama arkin su'aashan doonayna inaan weydiiyo caalamka iyo dadka iyo ciidan hadlaysay waxaysan waxa weeyaan war Cabdikariin markaad u mudaharaadaysa nin baa la dhiibay Cabdikariin waa hal shakhsi weeyaan waxa weeyaan dawladda Itoobiya oo waxa weey taqaanaa 200 sano Itoobiya soo dastuur iyo sharci ka jira ayaa jira uu ka nasiib fiican yahay kuwii horaan leeyahay waxa weey taqaanaa si nabadgelyo ku jooga wax ku ma taqaanaa ku dhicina ma jirto sana misanay dastuurkaas wuxuu siiyay umbuleey
marka maxaa loo waayay dad al-shabaab dadkii leese ka mudaharaaday waa su-aal nimanka mudaharaaday oo taasaan isweydiinayna maxaa loo mudaharaadi weyday inaad dowladdii soomaaliya la yaqaanay waxa weeye maxaan ku rahaaye waxa weeyaan horumar ka shaqeynaysay ee soomaaliga keentay ee af soomaaliga qortay ee waxa weye mataqaanaa yani soomaalinimada mataqaanaa ee abuurtay waxa weeye maxaan ku rahaa horumarka lagu yaqaanay dowladdii nooca ah baa naga luntay waan soo ceshanaynaa go-aana maxay u qaadan wayeen way tahay ugu mudaharaadi wayeen inay maxaan ku rahay dowladnimo 30 dowladeed baa kor fadhiya oo waxa weye mataqaanaa amisom la yidhaahdo yaa kor fadhiya taa marka intay ka ficil ka qaataan inay iyagu ismaamulaan oo dowlad mataqaanaa noqdaan oo waxa weeyaan madaxdooda ka dambeeyaan oo is ixtiraamaan madaxduna ay iyaga ixtiraamta la israato saasay ixtiraam ku leeyahay laakiin taana ima dhibayso oo adduunyada faraha badan ee kor fadhida Soomaaliya ninka Soomaaliga waxa mataqaanaa Soomaaliya u dhashay inuu waxa weeye maxaan ku rahaaye taa intuu ka ficil tabo uu dowlad waxa weeyaan isagu maamulo oo dowlad waxa weeye maxaan ku rahaa markaas iyadu kala dambeynaysa oo muwaadinimo ah inuu helo inuu u mudaharaado waxa weeye maxaan ku rahaaye al-shabaab baa u diidanay al-shabaab iska dulqaado qabyaalad baa u diidan oo qabyaalada iska dulqaado